daawada maanta waxaanu ka hadlaynaa 20 sifo oo ay leeyihiin dadka la yiri nafsiyaadkooda buka. waxaa jira buug qoray ninka la yiraahdo Thomas Erikson. buuggaas oo la yiraahdo Surrounded by Psychopaths. waxaa ku hareeraysan dad nafsiyaadkooda ay bukaan. buuggaas waa buug aad u caan caalamka maanta. qoraaga buug hore ku horeeyay buu qoray oo runtii ku soo shaac baxay. wala hore jiray waxa ku hareeraysan dad axmaqiina. haddaba buuggan laba markuu qoray ayaa waxa uu ka sheekeynayaa buuggu dad buka caqliyan ma bukaan, caqliga kama bukaan, laakiin nafsiyaadkooda nafta ayay ka bukaan. marka dadka noocaas buuggu ka sheekeynaya bal waxa uu sheegayaa halista ay dadka noocaas leeyihiin. marka daawada buug qoraaga buug wuxuu sheegayaa 20 sifo ay dadkaasi leeyihiin. 20 ka sifo markaad eegto run ahaantii waa 20 sifo halis ah weeyaan. saadarteed bay muhiim u noqoto inaynu soo qaadano buuggaasi iyo qoraagaaba. daawada sifaadkan aanu sheegayno ee 20 ka ah waxa dhici karta qaar kamida inaad iska dhex aragto oo dhici karta. hadday taasi dhacdo waxa muhiim ah degdeg inaad soo gaadho. waxa kale oo dhici karta inaad saaxiibada ku aragto. bal waxa dhici karta dadka madaxda ku ah ee ku maamula ee ku xukuma inay sifooyinkan ay yeeshaan. hadday taasi dhacdo waa khatar weeyaan. sababtoo dadka sifadan leh waa dad runtii burburun ka shaqeeyaba. haddaba dadkan noocyadooda iyo sifaadka ay leeyihiin ayaan rabnaa inaan dul istaagno. sifada koowaad waxa weeyaan dadkan runtii la leeyahay nafsiyaadkooda buka ama xanuun nafsi ay qabaan. dadkan ugu horeyn waa dad codkar ah, waa dad soo jiidasho leh. waa qof codkara oo soo jiidasho leh oo dadka runtii markay uu hadlaayo iyo qaabku u hadlaayo iyo qaabku ku soo jiidanayo iyo qaabku ku qancinayo intuba dadku ay u soo istaagayaan. marnaba dadku isma oranayaan qofka nafsiyan buu bukaa isma oranayaan. sababtoo qofkan waa qaab muuqaalkiisa iyo sidoo dadka ula hadlaayo iyo sidoo u soo jiidanayaba waa qaab runtii ku soo qabanaya oo aad dhegaysanayso oo runtii in badan ku qancayso ninkan fikradu ka sheekaynayo. marka waxa la yiraahdaa ko sifada koowaad waxa weeyaan dadkan aan leeyahay nafsiyaadkooda way bukaan. waa qof runtii codkara soo jiidashana leh. sifada labaad ee leeyahay waa maxay? waa dad iyagu aaminsan naftooda. waa dad naftooda aad u jecel oo aad u qadariya oo dadka kale waxbaan u aragba. dadka kale waxba uma arkaan. naftooda oo kaliya aaminsan yihiin. waxay soo arkaan dadka inay ka sarreeyaan, inay dadka ka muhiimsan yihiin, inay runtii Allah dadka kale ay ka wada hooseeyaan ay aaminsan yihiin. marka cuqdad nafsi oo noocaas ku jirta. waxa ku jirta dadka wad ka fiicanta, dadka wad ka wanaagsanta, dadku way ka hooseeyaan, dadka wad ka sarreysaa. marka waa dad u sameeysan dadka kale inay xaqiraan. waa sifada labaad ee leeyihiin. sifada saddexaad ee leeyihiin waxa weeye dadkan damiir guba ma lahaba. damiir kuma gubo. dareen runtii ay ku dareemaan inay dambi ku jiraan ma dareemaanba. hadday dambi galaan oo ay dadku xadgudbaan xadgudubka ay dambiga ma dareemayaan. waxay soo arkeen inay saxsan yihiin. markastana iyaga ayaa justification isu sameeya aaminsan inay saxsan yihiin. marka waxa la dadkan damiir guba ma laha dadkan. isagoo dhib weyn geystay oo ummad dhan wax u geystay oo runtii aad dareemayso ayaa isaga xaggiisa caadi karto. isuma arka dhib inuu keenay. sifada afraad ee waa maxay? alqaswa waa dad runtii aad u qalbi adag oo naxariis lahayn. dadka lama tacaatufaan. waa qalbigooda adag. dhib weyn bay markaa geysanayaan ma jaxayaan. iyagoo dhib geystay oo dhibaato badan keenay ayaan haddana aanay naxayn. tacaatuf ma laha. haddii xataa ay looga sheekeeyo dhibaatooyin dhacay iyo dad masaakiin iyo waxa ma laha tacaatuf. waa dad qalbigooda adag yahay. waa sifada afraad ay leeyihiin. sifada shanaad ee dadka ay leeyihiin waxa weeyaan waa beenaalaya. beentu caadi baa normal beentu bale kama murgoonayo been aanu sheegayba. anytime baanu sheegaya sida Allah soo rabo u sheegaya soo maslaxada uu rabo uu gaadho ayuu beenta u sheegaya.
sifada lixaad ilaa waxa weeyaan daawade waa dad ku sifooday makriga iyo inay ku ciyaaraan dadka khiyaamada ayay sifadooda koowaad ay tahay khiyaamada aad u yaqaanaan khiyaamada ku khiyaameynayna wuxuu u yaqaanaa maskax badni iyo inuu ka horumarsan yahay ka caqli badan yahay marka qofka inuu ku ciyaaro ama dareenkiisa ku ciyaaro ama sidiisa qofka dadnimadiisa ku ciyaaro sidoo danaha ugu ciyaareen waa qof ku sifooba inuu khaa'in yahay oo qofkan markasta dantiisa kaliya uu ka fushanayo marka sifada lixaad leeyahay waxa weeyaan waa dad markasta makri wada in qof muxuu haayay ay dib u geystaan oo ay ka adkaadaan oo ay ku ciyaaraan ay wada sifada lixaad leeyahay waxa weeyaan waa dad in runtii ay dareemaan ay saameyn ku samayso arin dhacday oo ku ta'athuraan saameyntoodaas inta badan maaha mid gunta amaaha waa mid iska maxay dushuna halgaba geerino ka soo qayb galo dad dhintay dadka dhintay oo ka soo qayb galay geeridoodu saameynta ay murugadaasi maaha mid xaqiiqo ka ah waa mid iska yeelayo dadka uu soo boqday dhibaataysan ama xanuunka qaba ama ducafada ah la tacaatufka uu la tacaatufaya maaha mid xaqiiqo ah waa mid iska yeelayo oo istusnimo ay ku jirto marnaba xaqiiqadiisa naxariis kuma jirto tacaatufna kuma jiro sifadaasna daawada sifada toddobaad ee ay leeyihiin daawada sifada lixaad ee dadka noocaas nafsiyaadkooda ay bukaanay leeyihiin waxa weeyaan waa qof mar kasta waxa dhaco kaliya markiiba runtii reaction ka sameeya يعني قوان كيسوا دقدق أرير بعد عظيم مركب قوان بك قاضنايا كما فكيرايو أرنتن وقوان كقاضنا محاك صوب حكرا اسمه بربر دقايو فوائد يا خسارة حدعي كرا مئيقايو وحا لوليمي هادو أي مركبة رياكشن كسامينيا مركبة وحويان جواب وكبحنايا يسوغ المستقبل كي أنك فكرين والمستقبل كي إيغين isagoo eegeen maxaa ka ratimi kara maxaa dhib ka dhalan karta ayuu markiiba go'aan iska qaadanaya marka caatifada ku badan oo go'aan qaadasho caatifad ku salaysan oo xaqiiqo ku salaysnayn ayuu markiiba qaadanaya sifada runtii sagaaladii leeyahay waxa weeyaan dadka noocaas naftooda ma xakameyn karaan naftiisa ma xakameyn karo haddii qof uu yimaado oo qofkaasi marka uu ka xanaaqo waxa laga yaabaa qofka inuu dhib u geystaba inuu feedhaa laga yaabaa inuu caaya laga yaabo inuu wax kasta ku yiraahdo laga yaabo qof naftiisa xakameyn kara oo hayn kara maaha hatta isagoo mas'uula oo positionka ugu sareeya maxaa laga yaabaa inuu haysto meeshaasi haddii wax loola imaado xanaaqo waxa laga yaabaa waxa uu gacanta ku hayo ku dhufta laga yaabo qofka ku dhufto marka qof naftiisa xakameyn kara maaha sifada runtii tobaanaad ay leeyihiin waxa weeyaan dadka noocaasi waa dad markasta u baahan dad runtii kiciya oo wax weyn iyagu iskama kacaan marka qaar waxa dhacda waxay la kulmayaan wax kicinaya la kulmayaan marka waxa kicinaya la kulmayaan markiiba way ka falcelinayaan tusaalahan qof baa u soo galaya waxa la oranayaa hebel baa Facebook kugu soo qoray isagoo ka fikir buu kacaya uu boodaya qofkiiba oranaya waxa lagu sameeyo ama waxba ku sameeynaya ama qofkiiba raadsanaya yaani waa qof markiiba la kicin karo oo dadka qaar baa markiiba kicin kara haddii hadal xun loo imaado iska kacaya haddii hadal wanaagsan loo keeno qofkiiba iska amaanaya marka waa dad ay fududahay kicintooda iyo markasta wax u baahan yihiin kicin bay u baahan yihiin sifada kale ee daawada waxweeyna koob iyo tobanaad mas'uuliyadda naftooda ma qaadaan isaga dhib geysanaya mushkilad buu sameynaya isaga ka mas'uula mas'uuliyadda ma qaada cid kale u saaraya anu ma sameyn boornay shaqadaanu shaqo ku mali nin kala sameeyay cid kale eedda markaba saaraya marka marnaba arkimaysta dadka noocaasa iyagoo kale waxa ana sameeyay waxa xaqayga ka timi ana mas'uulka ah aniga hagaajinaya ana dhibta geystay abeen ha ka soo marka cid kale ayuu eedda saaraya waa sifooyinka ay leeyihiin dadka noocaasa dadka la yiraahdo waxay ka bukaan naftay ka bukaan oo sifooyinka leeyihiin sifada kale ee daawada wax weeyaan ee 12 dadkaasi markii ay yaryaraayeen mashaakil ayay soo waajaheen xagga dhaqanka waxa laga yaabaa markay yaryaraayeen inay dagaal badnaayeen inay ciyaalka isleen jireen in waalidka ay dhib badan isku hayeen marka markii ay yaryaraan xataa waa dad ku soo koray runtii dhibaato
iyo isqabsi iyo muxuu ahaay waxyaalaha noocaas qodobka 13aad ee dadkaasi waxa weeyaan dadkaasi inta badan waxa ay leeyihiin dhaqan ka soo horjeeda ka mujtamaca yani mujtamaca dhaqanka ka jira waxba uma arkaan laga yaabaa dhaqanka mujtamaca ka jira ixtiraamka iyo weynaynta iyo kala dambeynta iyo waxa ku samaysan iyo waxba uma arkaan maalintu doono wax dhaqan ka soo horjeedu sameynaya maalintu doono wax laga yaabo qof dhaqan yaqaan ama oday weyn oo la yaqaano inuu iska caya laga yaaba sababta isaga waxba lamaba ahba marka waa dad mujtamaca dhaqankiisa inta badan wax ka soo horjeeda sameeya sidafada 14aad leeyahay waxa weeyaan dadkaasi waxay soo arkaan inay dadka wax kasta ka mudan yihiin in iyaga loo shaqeeyo ay soo arkaan waxa laga yaabaa dadka noocaas haddii la yiraahdo cashuurta bixi inuu aanu cashuur ma bixinayo saa cashuur aniga laga qaado waxa laga yaabaa waxalaha waajibka mujtamac oo dhan ay ka sameeyeen isaguna diidaba soo arka in isaga xaq loogu lahayn inuu isagu already dadka ka mudan yahay wax badan ka mudan yahay in isagu in la tixgeliyo ay ahayd laakiinse maya haddii meel yar kuyu gal oo kuyu la galayo kuyuga soo ma galayo wuxuu arkaa inaan kuyuna galay isaga xaq loogu lahayn uu toos wixiisa loo siiyo marka waa dad aaminsan dadka kale in iyagu shaqeynayaan isagu wax ka mudan yahay isaga in la ixtiraamo isaga in la tixgeliyo marka waxa la badan oo aan sharciga waafaqsanan buu isagu kaligiis ka qabsanaya isagoo aaminsan inuu xaq u leeyahay sifada 15aad ay dadka noocaas leeyihiin waxa weeyaan waa dad la yiraahdo xagga calaaqaadkooduna ma fiicna inta badan xiriirkooduna si guud hadeen u sheegna xiriirka oo inaan si gaar ah u sheegin waxa la yiraahdo xiriirkooduna mid fiican ma runtii qodobka 16aad dadka noocaas ay leeyihiin waxa weeyaan sifada ay leeyihiin dadka noocaas ahdaaf ma laha fog ma laha ahdaaf fog iyo meel fog ay ka fikiraan ma jiro dadkaasi waxay go'aanka ku qaataan dhacdada marka ay la kulmayaan ma laha hadaf fog oo ay ama istiraatiijiyad fog oo ay ka fikirayaan oo dadka ay gaarsiinayaan ama isagu isgaarsiinayo ma jiro sidoo kale kama fikiro wixii tagayna dhibaatooyinku soo maray iyo qaladaadku geystay isma weydiinayo sima oran intaasoo qalad baad gashay kaasaad gashay ee is hagaaji oo isa sax isma oranayo mustaqbalkana kama fikirayo muxuu ka fikirayaa dhacdadu maalinta la kulmo sidoo ga jawaabi lahaa marka tactics-ka aad buu yaqaanaa dadka uu la dhaqmaayo ee maalinlaha ah kolba qaabka loo xirfadaynayo iyo qaabka runtii aakhira loogu dhaadhicinayo iyo qaabka loo dulminayo iyo qaabka looga hortagayo uu yaqaanaa laakiin mustaqbalka haddaad tirada wax ka weydiiso mustaqbalka uma cadda haddaad wixii tagay tiraa waxaasoo dhan baad soo samaysay miyaanay tusaale ku ahaynaa waxba uma arkaba marka dhaqankoodu waa nooca ahdaaf guud oo ay u socdaan meel target ah oo ay u socdaan habeerati ma jiro maalinta waxa dhaca iyo waxa uu la kulmayo ayuu go'aamada ka qaadanaya si caatifi aan uga qaadanaya oo uu ka fikirin ayuu go'aamada uga qaadanaya qodobka runtii 17aad ee ah sifooyinka dadkaasi ay leeyihiin waxa weeyaan actionska ay sameynayaan ficilada ay sameynayaan ma xambaarayaan waxa ka soo baxaya ficilada ay sameynayaan waxba ka soo baxaya waxaan ka ratimayo waxay sameeyeen xumani wanaag ku doona ha noqdee isagu ma xambaarayo ficilka uu leeyimi isagu uu sameey dib ka timid dibta wax leen mas'uul kameeyba shaqo kuma la dibta ka ratimanta hadda isaga ay sameeyay action buu qaad ficil buu sameeyay ficilkiiba waxba ka soo baxay waanu cid kala saara hadii waa inuu isku dayaa inuu helo dad iyagu noqdo kabshil fidaa dad iyagu tabaniya oo iraanaga waxa sameeyay hadda isaga sameeyay laakiin isaga saan loogu tiirin cid kale ku qarinaya waanu cid kale yiraahdo waxa sameeya isagu ficilku ka soo fulay amarka isaga bixiyay laakiin sayaa sheeganaya cid kale sheeganaysa oo la naga sameeyay markaas isagu ka badbaadaya eed markaas ficilka uu sameeyay qaadan maayo cid kala qaadanaysa isla markaas waa bari ninka waxa sameeyna waa isaga waa dhaqamada ay leeyihiin dadka nafsiyaadkoodu ay bukaan sida buugaas sheegay qodobka 18aad ama sifada 18aad dadkaasi ay leeyihiin waxa weeyaan waxay ku kacaan acmaal badan oo dambiya laakiin xagga dambiga ma arkaanba acmaal badan oo dambiya oo sharcigu aan ogolayn ayay sameeyaan laakiin iyagu waxay soo qaaraan inay sharciga waafaqsan yihiin bal waxa laga yaabaa markay yaraayeen iyagoo yar inay waxaan ku soo barbaareen oo wax badan oo dambiyeed soo sameeyeen haddana ay u arkayeen inaanay waxaas ahayn wax dambiya
qodobka 19 dadkaas sheegaya sifooyinkooda waxa weeyaan sifooyinka dadka nafsiyaadkooda buka ay leeyihiin waxa weeyaan daawa waxa ka mid ah qodobka 19 oranayo war dadka hadii la fadhiisto oo dambiga ay sameeyeen marka muxuu loo sheego la yiraahdo muxuu heshiis lala galo oo la yiraahdo barta waxa ku joojiya way kula qaadanayaan hadii la xiro oo la yiraahdo war waalidii sii deynaya dib ha ugu noqonina way kula qaadanayaan laakiin markay hawsha ka baxaan halkooda ka miisayaan hadii la soo xiro oo la yiraahdo shardi waxa la idinka dhigayaa inaydan waxa dib ugu noqon marda ma sameynina haaba oran marda ma sameynayo laakiin markuu ka baxo meeshii jeelka ahayd dib uu galay dambiga heshiis buu kula galaya xoolka heshiiskii waana gala heshiiska buu qaadanaya sida markuu u qaatay hawshii ay dhamaato ee culayskii uu ka tago halkiisu ka miisaya wadaqamada ay leeyihiin ama sifaadka ay leeyihiin dadka runtii la leeyahay nafsiyaadkooda buka oo xanuun bay qabaan qodobka ugu dambeeya 20aad waxa weeyaan ee tilmaamaya sifooyinka ay leeyihiin dadka la yiraahdo nafsiyaadkooda buka waxa weeyaan dadkaasi dambiyo badan bay galaan hal dambi ma galaan yani qof markuu nafsiyaadkiisu uu xanuunsanayo dambiyo aan filanayn buu galaya waliba marka uu galayo adiga waxa weeyaan wax weyn ba dambiga oo aragtaa waxa uu galayo isagu laagso xolamaha dambigaas wax yar buu waxa waxaas marka dambiyo kala duwan oo dhinac kasta oo aan qaar ku filanayn sababtoo dadka dambiilayaasha qaar ba wax aan ku in hal dambiina sameeyaan tuugnimo kaliya oo wax kale aanay gelin laakiin dadka nafsiyaadkooda ay bukaan wuxuu galayaa dambiyo kala duwan oo nooc kasta leh oo xataa adigu aan filanayn isaga agtiisa laakiin waxba ka aqoon daawada marka 20 ka sifo ayaa buugaasi waxa uu sheegayaa Thomas oo qoray inay leeyihiin 20 sifo oo ay leeyihiin dadka nafsiyaadkooda ay bukaan ay xanuunsanayaan waxa uu leeyahay dadka noocaas bulshada waa laga qabtaa dadka noocaas wuxuu sheegayaa buuga inaad ka digtoonaato inaad la dhaqanto wuxuu sheegayaa dadka noocaas inaad iska ilaaliso inaad la saaxiibto waxa uu sheegayaa dadka noocaas madax bay ku noqon karaan tusaalayaal badan buu soo qaadanayaa madax caalamka soo xukuntay oo ah dad nafsiyaadkooda ay bukeen oo qaab dhaqankooduna qaabka sifooyinkan aan ka sheekanay sifooyinkaasna lahaa buu sheegayaa isla markaana qaab dhaqan aad u xun dadka ula dhaqmay Hitler buu soo qaadanayaa Saddam Hussein buu soo qaadanayaa niman badan dictatorska caalamka soo maray ayuu sheegayaa marka wuxuu tilmaamayaa in 20 kan sifo cid ka yeelan karto laakiin khatarta ugu weyn waxa weeyaan qofka maamulka ku sareeya markuu yeeshaa ugu khatarsan sababtoo dumintiisu wax kasta way ka duwanaanaysaa dumintiisu waxa noqonaysaa dumin runtii aan laga soo waaqsan kareen sidaa dareed buu runtii awood u saaray buugu inuu iraahdo qaabkee baa looga hortagaa dadka noocaas ah ee nafsiyaadkooda ay bukaan taasoo aad uga sheekeynaya qaabka looga hortagayo laakiin maanta inagu waxaan ku soo koobinaa intaasaan ku soo koobinaa. Assalaamu calaykum warahmatullaahi wabarakaatuh.